السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan daawadayaashana qiimaha iyo qaayaha nagmada meel walba joogtaan. waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka muuqaalada YouTube-ka looga xiro comments-ka ama faallooyinka. commenti waa faallo iyo in ra'yigaaga iyo fikirkaagaba aad ku cabirto wax lagu soo bandhigay. balse marka laga hadlayo YouTube-ka, waa qaybta falcelinta oo ay daawadayaashu kaga dhiibtaan fikirkooda ku aadan muuqaalka ay daawanayaan, wuxuuna ka hooseeyaa qaybta loo yaqaano description-ka. marar qaar waxaa dhici karta inaad daawato muuqaal, balse marka aad rabto inaad ka bixiso faallo ama commenti, waxaad arkaysaa in qaybta commentiska ama faallada aanay shaqaynaynin oo ay tahay off. haddaba maxaa sababay in commentiska laga xiro muuqaalada YouTube-ka? commentiska waxaa laga yaabaa in laga xiro YouTube-ka sababahan soo socda awgood. 1. muuqaalka aad ka daawanayso YouTube-ka qofka leh ayaa doorto inuu iska xiro commentiyada ama faallooyinka daawadayaashiisa ay bixinayaan. 2. YouTube waxaa laga yaabaa inay xirto iyada faallooyinka ama commentiska muuqaalada qaarkood sababa ammaan dartood, sida inay ka ilaaliso carruurta yaryar waxyaabaha dhaawici kara niyad ahaan iyo jir ahaanba. ilmaha da'da yar waxaa loola jeedaa qof kasta oo ka yar da'da qaangaarka, inta badanna waa qofka ay da'diisu ka yartahay 18 sano, sida ay qabaan dalalka caalamka intooda badan. 3. adiga ama qofka maamula nidaamka kombiyuutarka ama taleefanka ayaa ogolaaday qaabka xadidan. qaabka xadidan waa hab doorasho oo laga heli karo kombiyuutarka iyo moobilka markaad isticmaalayso YouTube-ka, kaa oo kaa caawinaya inaad iska diiddo in laguu soo bandhigo waxyaabo aadan rabin inaad aragto, ama aadan doonayn in dadka kale ee qoyskaaga ka tirsan ay ku arkaan YouTube-ka. tan waxay u eg tahay inay tahay goob control waalid oo uu YouTube-ku leeyahay. 4. kanaalka oo loogu talagalay carruurta ama muuqaalka oo loo sameeyey inay daawadaan carruur. 5. faallooyinka ku saabsan raadadka farshaxanka ee loo yaqaano art tracks si toos ayaa loo hakiyaa. track art waa nooc ka mid ah YouTube-ka kaasoo si toos ah loo abuuro, waana track ku jira albumka muusika. dabcan in comment muuqaal laga xiro waa awood kaliya uu leeyahay qof iska leh kanaal YouTube ah. haddaba si muuqaal ka mid ah muuqaalada ku jira kanaalkaaga aad commentiga ugu xirto, marka hore waa inaad soo kicisaa muuqaal ku jira kanaalkaaga. tusaale, iminka aniga muuqaalkan ayaan soo daaray, waxaan rabaa in muuqaalkan aan ka xiro commentiga. waxaan ku dhufanayaa qaybtan hoose ee ku taala edit video. halkaas ayaan jogsiinayaa. marka uu kugu soo xiro qaybtan faahfaahinta guud ee muuqaalka, hoos ayaad u soo rogaysaa. halkan ay ku qoran tahay show more ayaad ku dhufanaysaa. mar kale ayaad haddana hoos u soo rogaysaa. kadib waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku taalo comments and ratings. dabcan boxkan ugu horeeyo ay ku qoran tahay comment visibility waa dabcan in la arko faallada ama commentiga uu qofka bixinayo. halkaas ayaad ku dhufanaysaa. kadib waxaad ka dooranaysaa kan ugu hooseeya oo ah disable comments. intaa kadib waxaad leedahay save. dabcan iminka commentiga waa laga xiray muuqaalkan. haddaba si aan u xaqiijinno, dib u laabo. hoos ayaad u soo rogaysaa. dabcan iminka halkan waxaad rabtaa in lagugu soo qoray comments are turned off, oo macnaheedu ay tahay commentiga waa la xiray. macnaheedu waxay tahay in muuqaalkan wax commenti ah aan lagu dari karin, isla markaana waxaa sidoo kale qofka uusan awoodi karin inuu arko commentiyadii hore looga bixiyey muuqaalkan. labadaba waa laga xiray. haddaba si aan commentiga xayraad uga qaadno, waxaad ku laabanaysaa mar kale edit video oo muuqaalka ka hooseysa. hoos u soo rog
mar kale show more dheh, mar kale hoos u soo rog, kadib qaybtan ay ku qoran tahay comment visibility halkaa ku dhufo, kadibna waxaad ka doorataa qaybta labaad, kadibna waxaad leedahay save. dabcan muuqaalkeena iminka commentiga waa loo furay, isla markaana qof kasta iminka uu awoodaa inuu comment horle ka bixiyo muuqaalkeena. sidoo kale waxaan awood u leenahay in aragno dadka hore commentiga muuqaalkan kaga bixiyay. dabcan waan kana iminka qaybta commentiga waa inoo furan tahay, sidoo kale halkan waxaa nooga muuqda dadka commentiga ka bixiyay muuqaalkan. haddaba habkaas ayaa loo xiraa commentiga iyo faallada ay ka bixinayaan daawadayaasha muuqaalkaaga haddii aad tahay qof leh kanaal YouTube ah. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe inoo saar, muuqaalkana like inoo dheh, waayo like-tu waxay nagu dhiirigelinaysaa dadaalkeenna, waxayna naga caawinaysaa in muuqaalku sii gaaro asxaab badan oo u baahi qabta kana faa'iidaysan doonta insha Allah. mahadsanid in ka badan milyuun jeer.